kusoo dhawaada caawiya caalamka qodobada wararkeena ugu waaweynna waxa ay kala yihiin kurdida ayaa sheegaysa in dowladda Suuriya ay aqbashay inay gacan ka siiso sidii ay isaga difaaci lahaayeen weerarka Turkiga 100,000 oo qof ayaa ilaa iyo iminka ku barakacay warbixin dheeraad ayaanu idinkaga haynaa saameynta ay dagaaladaas yeesheen warar kale caawana waxa kamid ah berri ayaa doorashada guud loo dareerayaa dalka Mozambique kadib heshiis xabad joojin ah oo ay gaareen dhinacyada siyaasadda madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa BBC-da kala hadlay rabshadihii isir nacaybka ahaa ee ay 12 qof ku dhinteen ee dhawaan dalkiisa ka dhacay faqidada ciyaaraha ee caawana waxaanu idinkugu haynaa ninka ugu dheer ciyaaraha kubadda kolayga NBA-da waa Taco Fall oo reer Senegal ah oo dhererkiisu yahay 2.26 mitir kala soco BBC News Somali Television-ka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkani waa London caawa iyo caalamka habeen wanaagsan daawadayaal waanigu maxamed cabdi xaraar idin la socodsiinaya barnaamijka caawa aan ku bilaabe kurdida Suuriya ayaa sheegtay inay dowladda Suuriya ay ogolaatay inay gacan ka siiso sidii ay isaga difaaci lahaayeen weerarka Turkiga ciidamada Suuriya ayaa ku sii jeeda xadka waqooyi si ay uga hortagaan howlgalka ciidamada Turkiga ee gobolka Kurdidu haystaan ee dalkaasi heshiiskan ayaa yimid kadib markii ay ciidamada Mareykanka ee Kurdida la xulufada ay halkaasi isaga baxeen bal aan eegno muuqaaladii ugu dambeeyay ee Suuriya inaga soo gaaraya waa ciidamada Suuriya oo hub iyo kolonyo gaashaaman sita waxa la sheegayaa inay u ruqansadeen aaga Caynul Ciisa oo ku dhow Dalcabeyd maamulka Kurdida ayaa sheegay inay iyagu gacanta ku haynayaan siyaasadda iyo amniga gobolka weerarkan waxa amray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu bilowday toddobaadkii hore kadib markii uu ogolaanshiyo ka helay dalka Mareykanka Turkiga waxa uu doonayaa in ciidamada Kurdida uu ka saaro xadka duqeymo ayaa halkaasi ay ka fuliyeen iyadoo dad rayida iyo dagaalyahano labada dhinacba ay ku dhinteen tafaasiil dheeraad ah waxa inoo haya Martin Patience I mean, it's been extraordinary. America's stunning withdrawal. Bixitaanka Mareykanka ee waqooyi bari ee Suuriya ayaa waxay noqotay mid iyadu gabi ahaanba bedeshay sidii halkan ay wax uga socdeen Kurdidu imika waxa ay xulafo la noqdeen dowladda Suuriya halkii ay markii hore kala hayeen Mareykanka muuqaalada waxa ka muuqda sawirada ciidamada Suuriya oo ku sii siqaya dhanka xadka Turkiga waxay sheeganayaan Kurdidu in ciidanka Suuriya ay isku tixi doonaan xadka Turkiga laakiinse waxay la tahay in ciidamada Suuriya ku soo jiray 8 sanadood dagaal aanay awooddaasi lahayn ee waxa jirto in propaganda badan la fidinayo Kurdidu laakiinse waxa ay dareemayaan inay aanay lahayn wax ikhtiyaar mar haddii ciidamadii la soo weerarayo waxaana ay isla markaasi xulafo la noqdeen ciidamada Suuriya kuwaas oo ay taageersan yihiin Ruushka iyo Iiraanba arrintan haddaba wax walba way isku murginaysaa dagaalkii halkan ka soo dhacdana way isku murginaysaa laakiin Kurdidu waxay uga dan leeyihiin in ay waxoogaa nabadgelyo ku helaan arrintan isku murugsan وهاجاك هدي أنا دي بقول نقولنا واشنطن يجوانكي أمريكان كي كلا بحين عيدمه دي جوجي وقوي سوريا مدحوينه دونالد ترامب أيا برتيس تويتر كصادق أذن وجدي كردي وقوي سوريا جوجا استجوا شيء إن يصير دينيان محابس أساسي أمريكان كهال كاسي دي بقول صنقضه برتيس تويتر كورك وصادق وح ومدحوينه يري أمريكان كو وح أي جعنتا كهين نيان بيرو أي جعنتا كهيان محابس فربضان أو أساسا كردي إيو تركيا وإن أنا يصير دين محابستا أيو oo halkaasi joogta waxay ahayd in mar hore ay Europe dib u qaadato codsiyo badan oo aan u dirnay awadood waxa iminka waa inay qaataan buu yiri Europe waligoodna Mareykanka looma ogolaanay inay dib ugu soo noqdaan haddaba wali 100 qof ayaa ku nool xeryo ku yaala waqooyiga Suuriya qaarkood waa caruur waxa kamid ah 3 agoomaha oo ka yimid magaalada London oo daadooda ay u dhaxayso 6 ilaa 10 sano jir Cabdiraxmaan Bidaan Xaaji Daahir ayaa inoo haya siligan dabadiisa waxaa jooga caruurtii ay ka tagtay khilaafada islaamiga ah tani waxay ahayd toddobaad ka horun weerarka Turkiga caruurtan oo dhani aabba iyo hooyo ma laha waalidkooduna waxay ku dhinteen dagaaladii Daesh waa halkan meesha aanu kula kulannay haddaba Amira waa gabadh yar oo u dhow inuu ilowdaba qofkii ahayd Amira waxaa laga kaxeeyay Britain iyadoo 5 jir ah laakiin waxay xasuustaa noloshii laga qaaday oo weli wax yar u sii ifaysa
waxaan aadi jiray goobaha lagu ciyaaro waxaan u tegi jiray madadaalo halkani maaha goobteedii waxay u baahan tahay in la badbaadiyo in badan oo ka mid ah ayaa xanuunsan ama dhaawac ah carruurtan hiba waa 8 jir jidhkeeda waxaa ka muuqda calaamado naxlin leh aad ayay u naxdin badan tahay in la tilmaamo nabarradii maskaxda gaadhay maalmihii ugu dambeeyey khilaafada ee baaquus ayaa weli sii qoto dheer weerarkii lagu qaaday baaquus ayaa boqolaal ku dhimatay duqaynta isbahaysigu ku burburiyeen bakhaaradii hubka ee daacish haddaba carruurtan oo ku soo jiray khatar ayaa haddana iminka mid hor leh ay la soo gudboonaatay toddobaadkan ciidamada turkiga ayaa soo gaadhay xeradan amnigiina faraha ayuu ka baxay boqolaal ayaa halkan ka baxsaday agoomaha halkan ku xaraysan cidina ma oga meelay jaani cidhib dhigeen weligeedba suuriya may ahayn meel ammaan u ah dadka lahaya maxaabiista ahaa waxaana imika dhici kartaba in carruurtaasina sidaasiba lagu waayo waa hagaag bal markan haddii aan ogano qodobada kale ee ku jira wararka caawa guddiga doorashooyinka Tunisia ayaa goordhoweed shir jaraa'id kaga dhawaaqay natiijooyinka horudhaca ah ee doorashooyinka dalkaasi natiijada ayaa muujinaysa in Qays Saciid oo helay 72% tirada codaynta halka Nabil Karoui uu helay 27%. Masar Saciid waxa uu ka oleeyay inuu ilaalinayo waxa uu ugu yeeray qiyamkii kacdoonkii Goga Carbeed ninka la tartamayay ay warbaahinta aad ku hadlaysay waa Nabil Karoui waxa laga sii daayay xabsiga maalmo ka hor codaynta intaanay dhicin مشروع التلالك عذرك الدبيشة يا كسعودة الفلبين كدي مركي ودن كو ديوانجليي كيساسكي ugu horeeyay cudurka 19 sano kadib laba kiis ayaa la diiwaangeliyay bishii September isla markaana 4 kiis oo laga shakiyay ayaa la baaraya kalsoonida shacabka ee barnaamijyada talaalka ayaa hoos u dhacday sanadkii 2017 kadib markii ay dawladdu joojisay inay bixiso talaalka qandhada kaneecada cabsi laga qabo badqabkeeda darteed Hindiya ayaa ku dhawaaqday in ay dib u soo celinayso adeega taleefanada gacanta ee dooxada Kashmir 2 bilood ka hor ayaa la jaray kadib markii ay dawladda Delhi maqaamkii gaarka ah kala noqotay qaybta Kashmir ee Hindiya maamusho qadka internetka ayaa weli ka sii go'anaan doona gobolka وهاجاك بري تلادة دالك موزمبيق وحكى بالله دورشوين قرن ودورشة تجابه هشيز كي نبضد أغسطس أي كلا سحدين حزب التلادة هي فريليمو يحزب معارض كرينامو ودورشة دي يوجه الرئيسي اللي قبنا يدو أنو قيب كاهن هجامية أفونسو دالاكاما kaasi oo sanadkii hore ka qayb galay heshiis ayaa la gaaray kadib dhimashadii Afonso Dhlakama iyadoo ay soo kordhayaan kacdoonka kooxaha islaamiyiinta ee waqooyiga Mulid Xaaji ayaa inoo haya warbixintan halkan Gorangosa dhawaaqii dagaalka waxaa bedelay ka nolosha maalinlaha ah tobanaan sano buurahani waxay u ahaayeen saldhig dhaqaaqii iska caabinta Renamo halkan ayay kala dagaalamayeen ciidamada dawladda James wuxuu xusuusan yahay sida ay xaaladdu ahayd por causa disso de conflito que havia 2016 dhinac kasta xabad ayaa ka imanaysay waxaana lagu qasbay in aan buuraha seexanno markii ay taasi dhacdayna qoyskayga halkan waaban ka diray bilooyin waynu dhibtoonnay sababtoo ah waynu ka cabsanaynaa inaan bannaanka aadno oo aan miro beeranno a gente sempre vivia em sofrimento dagaalkii sokeeye ee Mozambique wuxuu socday 17 sano wuxuuna galaaftay nolosha malaayiin qof nabad aan caga adag ku taagnin ayaa la gaaray 1992 wixii xilligaa ka dambeeyay labada xisbi siyaasadeed ee waaweyn ayaa si la yaab leh xabad joojin u gaarayay mararka qaar rabshado ayaa dhacayay dadkuna way baxsanayeen August xabad joojin cusub ayaa la gaaray James Blake markii aan weydiiyay inay sii jiri doonto nabaddu esse acordo de paz kani waa heshiiskii saddexaad ma filayo inay tahay tii ugu dambaysay haddii nabaddu sii jirto 2 ama 3 sano marka waxaan dhihi karnaa way jiri doontaa labada dhinac ayaa wada olole laakiin shaki yar ayaa ka jira midkood guulaysan doona xisbiga talada haya Frelimo ayaa waddanka maamulay ku dhawaad nus qarni lama filayo inay taasi isbedesho laakiin iyadoo qayb ka ah rasaas joojinta waxay aqbaleen doorashadii gudoomiyaasha gobolada sidaas darteed taageerayaasha mucaaradka waxaa laga yaabaa inay haystaan wax ay u dabaaldegaan
qaybtooda renamo waxay aqbaleen hubdhigis ha yeeshee badi dagaalyahankooda weli waxay ku sugan yihiin xarumahooda hoggaamiyahoodana usuufa mamadi ayaa loolan kala kulmaya qaarkood gaar ahaan kuwa nabadda diidan muhiimaddu waxa ay tahay haddii dadku aanay rumaysan in si nabada codkooda lagu maqli karo waxa keliya ay samayn karaan waa in codkooda lagu maqlaa qori caaradii khatartu waa mustaqbalka waddanka oo ballanqaadyo badan soo maray laakiin james waxaa kala weyn baraare doorashooyinkan inay keenaan nabad waarta mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook fadlan raadi BBC News Somali halkaasi oo aad ka heli doonto muuqaallo falanqeyn dheeraad iyo wararka ugu waaweyn si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya caalamkana nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram iyo waliba YouTube weli waxaa inoo soo socda oo aad qaybta dambe ee barnaamijka ku daawan doontaan faaqidada ciyaaraha oo aanu caawi idinkugu hayno ninka ugu dheer ciyaaraha kubadda kolayga NBA-da waa Taco Fall oo reer Senegal ah oo dhererkiisu uu yahay 2.26 mitir qodobka iyo qodobo kale oo waaweyn ayaanu qaybta dambe idinkugu haynaa qadar yarnashaha dabadeed wali waxaad daawanaysaan caawiya caalamka waa aniga waa maxamed cabdi xaraare balaadan xasuusiyo qodobada caawa wararkeena ugu waaweyn kurdida ayaa sheegaysa inay dowladda Suuriya ka aqbashay inay gacan ka siiso sidii ay isaga difaaci lahaayeen weerarka Turkiga 100,000 oo qof ayaa ilaa iminka ku barakacay berri ayaa doorashada guud loo dareerayaa dalka Mozambique kadib heshiis xabad joojina oo ay gaareen dhinacyada siyaasadda madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa sheegay in si degdeg ah aanan loo maxkamadayn doonin shakhsiyaadka la sheegay inay ku lug lahaayeen musuqmaasuqa madaxweyne Ramaphosa oo iminka ku sugan London si uu uga qayb galo shirka ganacsiga Afrika ayaa BBC-da la hadlay waxa uu BBC-da la hadlay ka hor dacwad dhageysiga talaadada ee madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika Jacob Zuma oo lagu eedeeyay musuqmaasuq madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in weeraradii bishii September lagu qaaday ganacsiyada shisheeye ee Koonfur Afrika ay waxyeello u geysteen wadanka laakiin waxa uu beeniyay eedeymaha sheegay in aanu si degdeg ah isagu It's been damaging. We must accept that, and that is why dhaawac ayay nagu ahayd waana inaan aqbalnaa taasi waana sababta isla markii ay dhaceenba weeraradaasi sida aad og tahayba waxaa dhintay 12 qof oo 10 ka mid ay ahaayeen South African labana waxay u dhasheen Zimbabwe taasina waxay sababtay barakaca dad badan oo ajnabi iyo South African ba ahaa arrimahan waxa sababayna way badan yihiin qaarkood waxay la xiriirtaa dana dhaqaale oo dadku ay ku tartamayaan qaar badan waxay la xiriirtaa dambiyo dad South African dadka South Africa ma aha dad ajnabi nacayb ku jiro dadkeenu ma necba ajnabiga kale mar walba nabad ayaan kula noolaan jirnay dadka kale other foreign nationals
We've always lived in peace with people from other nations. dalal badan ayaad dhagaha ka furaysatay dad badan ayaa sidaa qaba maxaa markiiba arrintan wax looga qaban waayey waad sugtay ilaa 2 toddobaad oo aadan waxba ka qaban waad sugtay ilaa 2 toddobaad ama wax ka badan ka hor inta aadan waxba ka qaban oo markii aad aaday tacsidii Zimbabwe ay dadku kugu arkeen masraxa iyo sidii ay kugu soo jawaabeen sidee dareemaysaa haddaba marka adigoo Afrikaan ah dadkaagii ay si xun ula dhaqmayaan Afrikaan kale Well, it's not only a question of how do I feel. hagaag su'aashu ma ahan oo keliya sida aan dareemayo marka ay wax khaldan yihiin taasi waa khalad laga galay qof walba oo ay ku jiraan dadka kale ee Afrikaanka ah waa wax xun oo ay tahay in aan cambaareeyo waxaanan ugu baaqayaa qof kasta oo doonaya inuu dhibaatadaasi geysto in uu joojiyo oo aanu ka qayb qaadan ficilada noocaasi oo kale ah Participate in acts like that. وهاجاج بل إمكانه هو برنامج كفاقدات عيارها سنينته وح إنه سو أروريي أو إنه هي عثمان عبد الحسن عثمان برنامج كعاو حلة وحكجرة تتأدى دار أنا دتك ودا دار اسمه ذي بنادك معد كلام يقصير دار بحيسا محمد وحبة ما كان دار نوجران إن كعاو نوجرتها ضد دار أيان هينا وكبد سفي عن وعيارية أرد كنوان هينا عاو إن كستو تضبط كان دمات كيس عياريه هريال كإنجليز كأن لا عيارين هذانا عيارك لو فربضن أيان ددوينها وهينا oo caawa ay ka dhargi doonaan balse aan ku bilaawno wararka ciyaaraha ugu waaweyn caawa tartanka loogu soo baxayo horyaalka Yurub ee sanadka dambe ayaa caawa dhacaya England ayaa ku soo bixi karta haddii ay ka guuleysato Bulgaria oo groupka A ay kula jirto wadanka koobka adduunka qaaday ee Faransiiska ayaa waxa ay is arkayaan Turkiga iyadoo oo labaduba ay halka sare group H kaga jiraan Iceland kaalinta saddexaad ay groupkaasi kaga jirtaa waxayna u baahan tahay in ay ka guuleysato Andorra si ay kor ugu qaado fursadda ay uga soo bixi karto groupkaas dhinaca kalena Portugal waxay is arkayaan Ukraine Valtteri Bottas ayaa ku guuleystay tartanka baabuurta Formula 1 ee ka dhacay Japan si uu gacan uga geysto in Mercedes ay qaadaan markii lixaad ee isku xiga horyaalka ninka ay isku kooxda yihiin Lewis Hamilton ayaa kaalinta saddexaad galay halka Sebastian Vettelna ee Ferrari uu galay kaalinta labaad hadda Hamilton iyo Bottas ayaana qaadi kara horyaalka Bridget Kosgei ayaa jabisay rikoorkii dunida ee maratonka haweenka gabadhan u dhalatay wadanka Kenya ayaa ku oroday 2 saac 14 daqiiqo iyo 4 ilbiriqsi maratonka Chicago 1 daqiiqo ayay ku jabisay rikoorkii Redcliffe sidoo kale waxa ay ceshatay guusheedii sanadkii hore Ababel Yashne oo u dhalatay wadanka Ethiopia ayaa kaalinta labaad gashay ku dhawaad 7 daqiiqo ayayna ka dambeysay Eliud Kipchoge oo Kenya u dhashay ayaa noqday orodyahankii ugu horeeyay ee orodka dheer ee maratonka ku orda in ka yar 2 saacadood isaga oo 20 ilbiriqsi dhimay orodyahankan oo 34 jir ah waxa uu orday 42 kilomitir waxa uuna ku orday 1 saac iyo 59 daqiiqo iyo 40 ilbiriqsi tartanka oo ka dhacay sabtigii magaalada Vienna ee wadanka Austria BBC-da ayaana la hadashay ka hor inta uusan tartanka dhicin waxaan mar walba sameeyaa waxa ay la tahay dadku inaanay samayn karaynin sababtuna waxa weeye anigu ma aaminsaniba in bani'aadamku uu xad leeyahay waxaan u baahannahay inaynu aragno qofkii bani'aadamkii ugu horreeyey arrinkaasoo kale taariikh ka reema waa sidii qofkii ugu horreeyey ee isagu dayaxa cagadhigtay oo kale 12 Oktoobar sabtiga aynu soo dhaafnay Eliud Kipchoge wuxuu sameeyey isku day aan hortiisnina u samayn in ka yar 2 saac ayuu orodka dheer ku sameeyey Monza Italy ayuu 2017 markii ugu horreeyay isku dayay in ka yar daqiiqad barkeed ayuuna ku waayay xilliga Kipchoge wuxuu helay xilligii hore ayuu haddana haystay joogto ayuu tallaabada u bedelayay iyo kaba gaar ah haddaba maxay ahayd kalsoonidii xilligan uu qabay carbiskaygani waa wax iska caadi ah waxa weeyaan inaan toos u ordo 4.4 kilomitir leexasho keliyana waxay noqonaysaa iyadu 9.6 kilomitir waxaa halka ka buuxana dad badan oo iyagu raba in ay taariikhdaasi la qorayo markhaati ka noqdaan orodka 90% toos ayuu ahaa sidoo kale qabanqaabayaashu muhiim ayay u ahayd in hawadu ka hur yaraato sidii ay ahayd Monza si Kipchoge uu helo in jirkiisa uu si wanaagsan ula qabsado cimilada dhinaca kalena
muhiimad kale ayaa jirtay markay halkan kula joogaan taageerayaal waxaa jirta in ay ku dhiirigelinayaan markaa way fiican tahay inaad mar walba haysato dad kula dhinac taagan xagga dhiirigelinta si loo gaaro 1.59 daqiiqo waa in xaaladaha oo dhan ay sax ahaadaan inta uu tartanka socdo halkani waa xaruntii Kibochi uu joogi jiray toddobaad kasta 6 maalmood oo ka mid ah marka la barbardhigo sidii uu ahaa 2017kii isbeddel badan ayaa ku dhacay jir ahaan si fiican ayuu u dhismay dhan kasta marka laga eego jir dhismeedkiisa iyo awooddiisaba si weyn ayay isu beddeshay sanadkan waxaannu haddaba ku soo kordhinay ciyaaraha iyo tababaraduba ay noqon doonaan qayb ka mid a barnaamijkayga barnaamijka carbiska waxaan ku soo darnay mid la isku dayayo in lagu xoojiyo isaga oo lagu buuxinayo hoos u dhicii 2017kii si wanaagsan ayaannu isku diyaarinay waxay u muuqataa inay fududay balse xaqiiqdii 34 jirkan hore ayuu u sameeyey si uu u dhigo isbeddel weyn monsa markii la joogo waxaan ahaa sidii nin feedhyahana oo isagu markaasi goobtii feedhka galaya isagoo nugayn waxa dhici doona waxaanay u tahay un laba in ama dhulka lagugu tuuro ama aad guulaysato waxaan Vienna imi aniga og waxaan samaynayo oo aaminsan in aan orodka ku dhamayn karayo 2 saacadood in ka yar waayo sababtuna waxay ahayd 2 sano ka hor ayaan tijaabiyey ma aha un tartan ma aha un guulaysi waxa ay tahay in aynu taariikh lama ilaawaan caalamka uga tagno in aad guul ka gaarto kubadda kolayga uma baahno oo kaliya inaad noqoto ciyaaryahan aad u wanaagsan waxa sidoo kale aad u baahan tahay inaad noqoto qof aad u dheer sidaa darteed la yaab ma ahan in dhirir gaaraya 2.26 mitir aad noqoto Taco Fall calafkiisa ayaa saan noqday waxa uu ciyaarta bilaabay wiilkan Senegal u dhashay 6 sano ka hor guul ayuuna ku tallaabsaday waxa uu heshiis la galay naadiga la yiraahdo Boston Celtics waxa uu noqonayaa ciyaartooyga ugu dheer taariikhda NBA-da qaali baaruud ayaa inoo haya shakhsiyan dhirkayga waan jeclahay balse way adag tahay inaan helo dhar ama kabo kani waa Taco Fall waa ninka ugu dheer xiriirka kubadda kolayga dhererkiisu waa 2.26 mitir kabaha uu xidhaa Maraykanka nambarkoodu waa 22 diiwaanka NBA-da wingspan ayaa ahaa 2.3 mitir cunug yaroo Senegal ka yimid ayaan ahaa 6 sano ka hor ayaan basketballka bilaabay 23 jirkan ayaa u dhashay Senegal weligii hore uma ciyaarin kubadda kolayga markaan ciyaalka ahaa waxa kaliyoon doonayay waxay ahayd in aan daawado kartuunada markaan iskuulka ka soo baxo ayaydayna basketballka ayay daawan jirtay waan hurmi jirnay sababtoo ah hal TV ayaa gurigeenna yaalay iyana waxay doonaysay inay daawato horyaalka basketballka hadda basketballka ayaa noloshayda noqday haddii aanan maalin ciyaarin waan u xiisoodaa riyadaydu way rumooday dhabtii waan riyoonayaa falanqaynta ciyaaraha ee caawana intaa ayaynu ka gaarnay haynoo joogto halkaasi maxmed cusmaan cabdixasan aad iyo aad u mahadsantahay markii aan eegno sheekooyinka had noo soo deysay mislada ciyaaraha kala duwan haddii orod noqon lahayd ama basketball noqon lahayd Afrika ayay aadeen markaad aragto orod ama ciyaaraha kaleeto oo xirfadaha gaarka u baahan Afrika kaalin weyn ayay ka qaataa inkastoo kubadda cagtan aysan ku liidano ragga dunida ugu caansan sida Mo Salah iyo dad aragto Afrika ay ka soo wada jeedaan labada dhinac Afrika way haysaa waa sidoo beel leeyahay ciyaaruhu Afrika ayay u dambeyn doonaan ugu dambeyntiina kumanaan kun oo qof ayaa isugu soo baxay Myanmar xafladda Tadiya Good nalalka toddobaadkan bandhigan oo sidoo kale loo yaqaan ciidda ilayska Myanmar ayaa la qabtaa maalinta dayax 15aadka uu yahay uu dayaxu buuxo kumanyaal qof ayaa shumac shita dalka oo idil si ay u qadariyaan diinta Buddha xusno wararka ugu dambeeya BBC Soomaali waxaad ka heli kartaan bbc.com/somali inta ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka caawiya caalamka ku mahadsantiin daawashadiina inta aanu mar kale dib u kulmi doonno sida iyo nabadgelyo